isbitaalka marka la geeyay kadib waxaa dhacday isbitaalka anigoo joogo oo wali xaaladeeda aan la ogeyn in sheekadii ay u kala baxdo qabiil dadka qaar qabiil dadka qaarna yani aniga ila jiraan bas markay saas dhacday aniga markaa soo kacay kadib waxaa la yidhaahday maxaa kuu qabanaa waxaa yimaadeen Finaan Isteexo Muniir iyo waxaa yimaadeen iyo Xuseen Beebe iyo waxaa yimaadeen Cimraan maxaa kuu qabanaa ma ana maxaa ii qabanayeen qof dhibaataysan maxaa kale loo qabtaa بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحان السلام يا أصحابتك وحولن شننك كروس ثاني وحان لا يا أصحابت أتبع مهسنتين أصحابت مروسي شوبتي أصحابت عصب لما وحان لا وكم مهسنتين سادي بربرستياتي سبسكرايب تي لايك تي كومنت جوا وندي كم هاد حياة وندي كم هاد علينا لا يشكر الله لا يشكر الناس لا يشكر الله. maanta insha Allah waxaan ka hadli doonaa barnaamij aad iyo aad dadkii u qiiro geliyay barnaamijkaas oo ah Ayaaniita dhibta ku dhacday ka xumaashahan ka xunahay Ayaaniita iska raala hadalba kala sanqaraya Ayaaniita dhibta ku dhacday horta waa dhib ku wada dhacday gabdhaha Soomaaliyeed Ayaaniita qofkii fiidiyowga ayaan insha Allah fiidiyowga xagga hore aynu ku soo dhigi doonaa iyada oo ka sheekeynaysa dhibaatadii ku dhacday dhibaatada ku dhacday qofkii aan ogeyn insha Allah fiidiyowgaas aynu ku soo arki doonaa Ayaaniita waxa ku dhacay qof walaalkeed ah wiil ay soo dhaweysatay wiil Soomaaliyeed ayaaba wuxuu sameeyay kufsi iyo dil buu wada geystay runtii hadda diinteena islaamka waxa lagu hayaa weerar ba'an mid waxaan ka oran doonaa Ayaaniita oo aanu kaga xunnahay barnaamijka iyo dhibta ku dhacday midna waxaan ka oran doonaa YouTube-leyda Malaysia maxaasidiinba mise qabiilka ay tahay Ayaaniita ayaana ahayn hadda waynaga baaba'anay oo qabiil baa ina baabiyay runtii qabiil baa si xun inoo farabaas nagu haya iyo wiilku ma yahay muslim mise ma aha saddexda qodob baynu ka hadli doonaa qodobka koobaad Ayaaniito horta waan ka xunahay waxa ku dhacay waxa la isku dari gaadhay runtii waa dil iyo kufsi ilaahay baa badbaadiyay siyaabku alla ku badbaadiyayna waxa kamid ah iyadoo ah gabar yar ehelkeedii meel la joogin qof ilaahay xarig la leh oo ilaahay ku xiran oo siday sheegayso salaad bay tukanaysaa salaaduna waxa ay ka reebtaa waxyaabaha xun sida diinteenu batri iyada oo ilaahay caawiyay marxaladii wanaagsanayd ee diiniyan ay ku sugnayd iyadoo sooman iyadoo tukatay ma sha Allah haddaba qodobka aynu ka hadli doonaa waxay tahay miyay fiican tahay walaal Soomaaliyeed oo gabadh ah marka ay badan yihiin dadku wiilasha iyo gabdhuhuba marka ay badan yihiin runtii waa la wada joogi karaa sababtoo ah shaydaan idima labaynayo laakiin dhibta dhacday waxa weeye markii ay habluhu ka baxeen Ayaaniita qadartu waa qorantay wixii alla qoraa waa qoran yahay laakiin waxa aan jeclaa ayuu baan sheegay haddana waabay qorantay laakiin waxa aan leeyahay ayaanay dhibtii kuugu dhacday kala dhib waa kuugu dhacday inaad wax ka barato waxa aad ka baranaynaa waxa weeyaan laba qodob qodobka koobaad in aanad wiil dambe oo gayaankaaga ah aanad guri kula kaliyeysan sababta shaydaankii weynaa ayaaba isaguna halkiisii jooga isagoo oo raba oo ay ku faanayaan markay leeyihiin nin boqorkooda weyn ay u tagayaan wuxuu dhahdaa maxaad soo qabatay markuu dilka sheegayo markuu laba qof oo isfuray sheegayo markuu haddana la siinayo guusha wadiga ogo waa laba qof oo sina laba qof oo isqabin markay sina uu isku geeyo waa iyo marka qof walaalkii muslim kale uu dilo runtii waxaan ku leeyahay ayaanay waxa aad ka barataa walaashi aad baan uga xumahay waxa la kabiliseed kaba isma dheera runtii maanta aad baan uga murugooday fiidiyowyadaadii dhammaan waan la socda waan daawanayaa waxa aan leeyahay wixii way dhaceen caanadaatay dabadood la qabay waxaas marka ay dhacaan ha eegin wixii ku dhaafay waa ku dhaafeen
laakiin waa inaad cashar ka barataa casharka aad ka baranaysaa waxa weeyaan wiil aan walaalka ahayn inta diintu kuu xalaalaysay aan ahayn inaanad guri horta soo gashanin kow inaanad kula keliyeysan sababta oo ah ilaahay baa ku caawiyey waxaanu ku tusayey inuu ilaahay inaad wax ka barato waxa dhacay taas ayaan waxaan ku leeyahay waan ka xumahay walaashay waxa kuugu dhacay dhiigaaga daatay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu kaaga dhigo inuu dambiyadaadii kaaga tirtiro inan yar baa tahay 16 jir reerkoodii la joogin hooyadeed la joogin tallaabo kasta oo aad qaadayso iska fiiri ilaahayna tala saaro taa waxaan ka leeyahay ayaan tan kale waxaan la hadlayaa YouTube-leyda Malaysia iyadoo inantii dhibteedii markii hore qaar waxay yiraahdeen sida adna iyo walaasheed waxay ku leeyihiin waxa aanu rabnay aanu moodaynay sheekadeeda private markii ay private-kii ay soo dhaawacii ka soo kabatay ay dhakhtarkii ka soo baxday ay barnaamijkeedii share gareysay dadkii la share gareysay u soo duceeyeen subscribe ku heshay maasha Allah ay dadkii kale barbar istaageen qof YouTube leeyahay oo intuu soo istaago iraahdo ayaa sooray waxa kugu dhacay waan ka xumahay horta runtii lama arag idinku waxa aad ka dhigateen qofka anagu waxaan diidaynaa inaanu bareefad arrimaheeda ka hadalo hadday ka hadasheen maxaad u qabateen kow miyaad la sheer garayseen oo dadka kale u soo bandhigteen wixii ku dhacay ayaa laba miyaad dacwadda ku socota kamaydaan barbar istaagin taa waxaan leeyahay intaad qabiil iska dhaaftaan oo qolo iska dhaaftaan inantaa yar ee ugubka ah inaad caawisaan way fiicnayd dadkii laba qoloy noqdeen qaybi waxay leedahay iyaga ninkan iswadwadan jiray oo sheeka iyo ka dhaxaysay muxuu haasaawe ka dhaxeeyey qaybina waxa ay kaga mid noqotay ayaan in ay qabiil ku taageeraan haddaba wiilkan qabiilka lagu taageerayo ma yahay wiil muslina maya waa wiil kristana kuna jira shaashadaha oo dhan sida idinka muuqan doonta sawirkiisan shaashadaha caalamka oo dhan buu ku jiraa iyadoo 10,000 oo qof daawanaysa hal mar oo uu sheeganayo inuu yahay kristan oo uu magaciisii Cabdilaahi u bedelay dajoy uu la baxay waxa aan leeyahay ayaan waa loo sheegay sida aan maqlay inay runta inay beenta ma garanayo ninkan inaanu diinta islaamka haysanin kow nin aan diin islaam haysanin ina soo dhawaysataan la tattakhiduu cadawii wa cadawukum awliya inaynu awliya ka dhigana cadawga alle iyo cadawgeena maanta dad qabiil baa ina waalay qabiilka heerkaas u jooga qof diintiiba ka baxay oo isagu cadaystay ayaynu qabiil dabada ku wadanay marka Cabdilaahi ma aha wiil muslim ah halka walaalaha aad ku noqoteen anu ma garanayo walaalka xidaadu diinta islaamka ka baxo shaqo kuma lihid walaalkaaga kula dhashay iska daa qabiil hadduu diinta ka baxo maalintaas dabada diinta cid waxay idin walaaleeyaa waxa weeyaan la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah hadduu laakiin ayaan iyadoo loo sheegay inuu kristan yahay inuu isagu cadaystay oo meel waliba uu ku jiraba aniga igaas oo maanta Malaysia joogin baa wiilka historygiisii hayay oo halka uu ka hadlayay 10,000 oo qof baa daawanaysay waxaad wareysanayay shiina gaabo miyay haayeen kuwan ilaahay haynaga qabto dad badan bay fasuqiyeen dad badan oo wiilal iyo gabdhaba leh ay oo Soomaaliya maalintay soo galeen diinta maalintay Soomaali soo dhex galeen ayaa la inagu imtixaankeenina uu guuldareystay qaar badan baan ku guuldareystay 40% ayay qoladaasi farabaan ku hayaan qolada kristanka ah ilaahay waxaan weydiisanaynaa raxmaanka inuu inaga qabto labadaas wareysanaya waxay ku jiraan TV-gooda Cabdilaahi wuxuu ahaa wiil kristana ina aad tiraahdo uu soomanaa adigana aad qaladkaasaad gashay qaladkaana waan kaa saxaya inaad tiraahdo uu soomanaayo afur baan u sameynayay nin kristana oo cadaystay inaad tiraahdo afur baan u sameynayay horta dhib bay ahayd laakiin waan ka xumahay waxa kugu dhacay aad iyo aad baanan uga xumahay waxa aan leeyahay Cabdilaahi dadkii laba arrimood bay uga baqayaan hadaba dadkeenan maanta masiiba ku dhacday masiibadana waxa lagu wadaa waa la fangareynaya si diintoodii looga eryado inta la kufsado
عبد الله ما مسلم با waxaa sameynaya waa nin diinta islaamka ka baxay oo Kirista sheegtay ayaaba wuxuu sameynayay oo uu rabay intuu inan kusada hadana dilo waxaad ogaataan Soomaaliya inta indhihiina la baxda waxaad ogaataan dadka dilka iyo kufsiga wada inay yihiin dadka Soomaalida ka soo baxay diinta islaamka iyaga oo fadeexadeynaya oo dhibaataynaya diinteena islaamka la weeraraya waxa la leeyahay nin baa gabadhiisii dilay cid afgaraynaysa waayo waa Kirista iyo dad aan diinta islaamka haysan marka waxaan leeyahay inta isku jeedaan qabiil iyo qurun ka sheekaynaysan diintii weerar baa lagu hayaa dhalintii habla ee yaryaraydna weerar baa lagu hayaa kufsi baan baa lagu hayaa diintii laga baxaya wax badan baa jira bal faqadka halka saara idinka uun ha isku jeedina oo ha oranina waxaanu nahay reer hebel inta reer hebel aad ka sheekaynayseen waxa la quranayaa waa dhalaankeeni waa hablaheeni Soomaaliyeed waa wiilasheeni cid ayagii la isku diray la leeyay kufsiga wuxuu noqday iyo dilkii waa fangaray dad hay'adaha lacag ku bixisay haddaad ogtiin aydan ogeynba waa la isku fangareeyaa sababta iyo ujeedada laga leeyahayna waxa ay tahay oo quraata in diintaada lagu nacsiyo anigu inta sanadii sheegaya waana xaqiiqo haddaad baadhaan oo meelo badan gashaana wax badan ayaad helaysaan waxaan idin leeyahay war Soomaaliyeey kaca oo indhayeesha oo dhagayeesha oo qalbi diinteena difaaca yeesha waxaan idin kaga tagaa waa walaashiina idin leh fi amaan illah ilaahuna xifdi ilaahuna astur ilaahuna amaaso ilaahu bogayga burcad isku maray ilaahayo inteeda ciilan baciil tir waxaan idin kaga tagaa walaashiina idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh